وحمق ليا بدي باتلتين ورمقلا والله مقلا ورمتان السوشيال وحنت إيه وحكم إنت نكتب وحدي على المنهج حدي أين الشيء إنت وناكسن ورين السماينه وحا كبدا إنت حنو إلى الشيء حدي أي جيران وح غلط أو آن السماينه بني آدم بانونهي ملهن السماين كرنو لكن إن قابكي لو صحي جري أو وناكسنا لو صحو حدان هل غلط قالوا هيقو ذا النعم حدان لو قالوا هيقو النعم لكن واحد حقيقي يقول هذا هي أنا ديت ما دو يقول قبضته إلى الصحة إلى التوسيسو لكن هذا مرة والبشيك شيكته واللي بشيكته يسقوا عن جيران حنون بدني مسؤولية دي أنا الغاز الكريم بكنيسة. وحربا أنا لقيت واجب صاحبك وزير كهلي أنا وحنا وزير كي صحيح هشيس كي لوجا لي نيروبي ضد كتاسنا وهو صور وزير كشاقي حق أولادهم dadka Soomaaliyeed inay ka daqaan wax allaale iyo wixii dhibaato ku ah qarnimadooda hantidooda aad iyo aad ayaan u faraxsanahay runtii sida rada ficliga ama actionka laga bixiyay inay dadku ilaashadaan dhulkooda ma ku dheeraa doono aniga wasiir baan ahay golo wasiiraan ka tirsanahay prime minister kiin hor fadhiyo Umar Abdirashiid Ali Sharma arke amarkiisaan ku saxiixay aniga heshiiska marka cawada asaga hor taagan heshiiskaas wixii ku saabsan iyo waxa ka qabtiin waxaan rajaynayaa ra'iisul wasaaraha ka jawaabaya ama kunnool dalkan Britain ayaa waxa ay maanta ka qayb galayeen xaflad loogu talagalay in lagu dhageysto ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Umar Abdirashiid Ali Sharma arke iyo qaar ka mid ah xubnihiisa golaha wasiirada oo iyaguna la socday socdaal uu ku yimid dalkan Britain ra'iisul wasaaruhu waxa uu sheegay in socdaalkooda uu la xiriiro kulamo ay la qaateen wasiirka arrimaha dibadda ee dalkan horeyna ay qoraan ugu wada xiriireen ra'iisul wasaaraha dalkan Britain in badan oo kamid ah dadka Soomaalida ee maanta xafladda ka soo qayb galay waxa ay sheegeen sida ay muhiim u tahay in dadka Soomaalidu ay u midoobaan isla markaana loola dagaalamo dhammaan waxyaabaha dhibaatooyinka iyo khilaafka keeni kara oo Soomaaliyana loo baahan yahay in nabadgelyo ay ka dhalato waxyaabaha qaar ka mid ah xubnaha wasiirada inta aan u galin ra'iisul wasaaraha ay ka hadleen waxa ka mid ah sida loogu baahan yahay in abaaraha iyo biyo la'aanta ka taagan dalka Soomaaliya ay qayb weyn uga qaataan dadka Soomaalida colaado joogto ah oo weli ka taagan dalka Soomaaliya tan iyo burburkii dhinaca kale waxay sheegeen burbur aad u xoogan oo kaabayaashii dhaqaalaha ku dhacay iyo mid fikirka diiniga ah inuu ka jiro dalka Soomaaliya waxa kale oo ay sheegeen in adeegyadii guud ahaan qofku u baahnaa sida waxbarashada oo kale iyo caafimaadka iyana ay meesha ay ka maqan tahay iyo burcadbadeed oo inta badan ka mid ah waxyaabaha ay xubnaha beesha caalamku mar walba ka hadlaan sidoo kale waxa ay sheegeen xubnaha wasiirada ee halkaas ka hadlay oo ka mid ah wasiirka boostada iyo isgaarsiinta iyo wasiirka iskaashiga caalamiga iyo xiriirka in loo baahan yahay in dalka Soomaaliya dadkiisu ay wixii hadda ka dambeeya ka tagaan dhibaatooyinka dawlad la'aanta waxa ay xuseen in Soomaaliya ay u muuqato xilligan inay u gudubtay fikrad afkaar iyo doodo kale qabyaaladina ay muuqato inay sii yaraatay waxa kale oo ugu dambeyn halkaas ka hadlay ra'iisul wasaaraha dalka Soomaaliya Umar Abdirashiid Ali Sharma arke oo ka dhawaajiyay arrimo muhiim ah waxa uu sheegay in loo baahan yahay in dadka Soomaalida wajiga ay ka aaminsan yihiin bulshada caalamka la bedelo oo ah argagixiso iyo burcadbadeed waxa uu sheegay xalka Soomaaliya inaanu ku jirin qori iyo rasaas iyo waxyaabaha ay xubnaha beesha caalamka qaarkood markasta ku tilmaamaan Soomaaliya waxa uu sheegay in dhibaatooyinka ka taagan Soomaaliya ay ka mid tahay shaqo la'aanta oo kale taas oo ku khasbaysa in badan oo ka mid ah dhalinyaradu inay noqdaan maleeshiyooyin iyo dhinaca tacliin la'aanta iyo fikradaha oo uu sheegay in mararka qaarkood dhalinyarada lagu khaldo waxa uu muujiyay in loo baahan yahay in fikir looga hortago fikir oo kaliya guud ahaan waxa uu muujiyay sida loogu baahan yahay midnimo iyo tanaasul waxa kale oo uu xusay in heshiiskii dhexmaray dawladda ku-meelgaarka Soomaaliya iyo dawladda Kenya dhinaca badda la xiriiray ay dhinacooda daacad ka ahaayeen laakiin waxa uu muujiyay maanta markii ugu horeysay in dawladda Kenya ay jamacsanayd inay wax khiyaanto waxana uu yiri
continental shelves. Hadda ay qoran tahay inay la wareegto international symbol oo Soomaaliya loo baahan doono weli toban mahal inta kaleetana la siin doono unionka hay'adaas inta dowladda Soomaaliya ay dib uga socodsanayso. Runtii arrintaas waa codsanay in la cusboonaysiiyo. waxaa kaleeto codsanay in annaga aan u xanaysana laba oo maalin oo la yidhahdo exclusive economic zone in annagu dhulkeeda markaas dhaafo laakiin dowladda meesha ku imaado dhulka dhacay waa u xanaday inaan annaga codsano muxuu ahaa dhul laba oo ka badan waxay khasabtay in annaga yemen iyo kenya labadaba maadaama dhul leedahay oo ay isheedaan haddii inta la sii leeday isgaarayeen in inta la kala saarayo aan seexan wax looga weyn dowladnimada marnaba ahayd badda bixiyey wuxuu ahaa inaan yurka ka codsanay in laga kala muuqdo oo aan isku istaag kenya waxay runtii violation ku samaysay international law sharciyo baddu waxay ku wadaacay dhulka dib isugu waayay حديثاً عن سياسة الدين يقول إن الله سيئ وإن جهل لا يتوسع دعوة حقيقية إن شرع المنطقة الأساسية لا يتسلع وعن ذي شيء على وسع هذا أنت أنه عن كرسي سعرنا تعقد في صومالين عن صومالين حاجة عبدولي Universal TV London. ururka xisbul islaam oo kamid ah dhinacyada hubaysan ee ka